كيسا وقارنا economic integration كده وافعين European Union كمركز فيرس economic integration كده وافعين سو مركز أنكاس أكفيرس وافعين بس لكن أنك وحنوتال ورهذا إلا حكي دين صار إلا يحمر جناح وسعودة بار يحمر جناح انتو مرا عداد يحمر انتو مرا معناها بيدبا iyo gaalkacay maxaa ganacsi oo dhaxmaro marka inaan inta ka boodno anana kongan alaab geenina Rwandan alaab soo rarayna is just macnaha waxa fantasy waa macnaha xaqiiqda shaqeyso marka xaqiiqda horta aan ka bilaawno sababtoo ah trade kama bilawdo dush kama bilawdo waa mid kuwa horta macnaha economic integration dalka u baahan before aan cid kale aan ku biirano wax ku darsan waa mid kuwa mid labaad oo ayadana critical ah waxaan دكتورنا كجرت باريس وحالي 3,300 كيلومتر حبال لنا وهرون لكن سبحاوة كينيو حبلا كاس كيس إثيوبيا كم جرت بعيدا المشروع عن إيسار كميرت كم جرت سو مركا محاضرة كينيا أديك حبلا استعمال تيدي استعمال أنا لو فينا عرب تقسيم مرتينا دين مركز رواندي يجينا معناها وعقد إنه الشقية لو بعيا سيدو كله معنا وحن كفانا وحن أنا دبده معناها سوماليد مركي جوان جناحسي هذا وفعل لكن نوعه وجناحسي ما أنا جناحسي أنت أبورني أدوك معنا وحلو حساب وحدها أيضا إن ند إمبورتر أما ند إكسبورتر إن هذا وح أديك عاتميس أو دبده ولوس ميا كبرن وح أديك صور وسط محيتها وح أنا جمانت أنا هاي الماركت أنا هاي عالمكو وعلينا هاي أنت سلو فينا وعن عالم كجدينا معنا وحن ملاك كريه oo Soomaali waxaan ku qancinaana suuqyadeena ku qancinaana kalluunkeena ku qancinaana macnaha iska daa macnaha inaan dibadda wax u dhoofin marka waxaad u maraysaa in labadii lugood aan kala hormarnayno horta haddii aan rabno inaan wax qancino domestic market-keena u baahan inaan qancino in terms of production hadday noqoto alaab wax la soo saara services hadday noqoto midda kale isku beeritaanka talaftigeeda in la-aanta mashaakilku leeyahay Uganda markii ay ku biireysay way diiday in employment la isku furo in shaqaalaha la isku furo way diiday sababtoo ah waxaa jirta cilmi baaris World Bank ka sameeyay halka qof oo Kenyaatiga in terms of productivity markay imaado 6 qof oo Uganda isku dhigma halka qof oo Tanzania in terms of productivity 4 qof oo Uganda isku dhigma soo markii Museveni waa u muuqatay haddii uu isku furo shaqaalaha in guryaha shaqaalaha la keensanayo booyaasida ay noqonayaan Kenyaati ay noqonayaan waana wax hadan haysto hoteeladeena dadka keena dadka masaajid xamarka sameeyna kulli Kenyaati waa marka inaan dhahno anaga waa soconayna immigrationka bareeda qaxootiga ma soconayna passport ma sii qaadanayna mana that's not macna wax oo wadan oo lagu sareyn karo ma marka waxaan u baahanahay back to basics inaan sameysano inaan horta anaga aqoon iska dhisno sababtoo ah adduunka waxa lagu tartamo waa aqoon waa macnaha aqoon way naga sareeyaan Kenya Uganda Tanzania kulli way naga sareeyaan soo marka horta waxaan service gain karna mar waxaan skills gain karna mar waxaan sheeganayna waa soo qaadanayna waa and then once adi just important ata the position ka kor ma kacay market ka ma dhismay dadka ma dhismay waxa isticmaalaysa adeeg dadkaas isticmaalaysa waa mid labaad wadankana u baahan wixiis in la dhoofiyo mid saddexaad waxay tahay ayaga investmentiga laftigooda raadinayo waa aad u yartahay in ayaga ay ku noqdaan investment sababtoo ayaga laftigooda waxay ku jiraan inay wadamada lacagta haysto excessive capital haysto inay soo jiistaan oo wadankeeda keensadaan oo ay helaan laakiin kama sugaysid Tanzania inta soo baxaan iyo macnaha inay inta imaadaan ay ku maalgeliyaan kama sugaysid sidaad way raan ay ka rabaan in ayaga maalgelisay ka rabaan soo marka aniga macnaha doodeedu waxay tahay way fiican tahay economic integration in principle mabda'an waa arrin aad u fiican laakiin economic integration wuxuu u baahan yahay dalkeena inaan ka bilaawno adeegeena servicekeena shuruucdeena uu noqdo macnaha meel oo competitive ah soo markaan ka sameeyno ayaan suuqa caalamka inta tagnaan dhigi karnaa waxba idinku darsanaynaa laakiin inaan ka bilaawno kaliya waxaan noola soo diraa dan industry-geena ma tartami karaan mana soo noolaan kara waa mahadsantihiin waxaan rabaa hadda in aan kusoo dhaweeyo cabdinaasir cabdulaahi bayo tartanka shaqada